maayarka degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan oo gaadiidkan ku wareejiyay gudida dhismaha wadada cad ayaa waxaa loogu talagalay gaadiidkaasi in lagu dardargeliyo isla markaana ay degmadu kaga qayb qaadato dhismaha wadada cad. maayarka ayaa sheegay dhamaystirka iyo dhismaha wadada cad ee isku xidha Hargeysa Salaxley iyo Naguxa inay door muhiim ah ka qayb qaadan doonto horumarka deegaanka. waxaan u mahadcelinayaa Banka Jamhuuriyadda Somaliland oo dawladda hoose ahaan noo sii maalgeliyay runtii qalab naga caawin doona runtii dhismaha wadada cad. waxaan halkan doonanaa ku wareejino runtii gudida dhismaha wadada cad gaadiid loogu talagalay dhismaha wadada cad oo dawladda hoose ahaan loogu talagalay gaadiidkaas runtii ka kooban gaari tankara iyo cagaf ruglidii runtii iyo gaarigan iskorkada tankarta waxa kale oo ku jira gaadiidkaas aan dawladda hoose ahaan ka qaadanay bankiga gaariga Alan Gruusalka runtii naga dambeeyo isaguna xafiiska runtii lagu shaqeyn doono iyo danaha kale bulshada. wadada runtii waxa weeyaan wadadaasi waa jid runtii halbowlo oo ah runtii qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waa runtii dhaqaale ahaan iyo maxaan rahdayay wadan ahaanba waxaan rajaynaynaa insha Allah oo anaga runtii mudnaanta koobaad noo ah in wadadaasi ay dhameystiranto insha Allah sida ugu fudud inta imika dhiman. waxaan ugu baaqayaa runtii ganacsatada iyo dadka runtii kasoo jeeda deegaanka runtii inay wadada wax ku darsadaan. geesta kale maayarka xigeenka degmada Salaxley injineer Maxamed Cabdi Haariye siyaasi Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine iyo Khadar Aadan oo ku hadlay afka dhalinyarada degmada Salaxley ayaa u mahad celiyay maamulka degmada Salaxley. Raxmaan Raxiim marka hore Ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'aala mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa duqa golaha deegaanka degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan iyo maayarka xigeenkii Maxamed Cabdi Haariye iyo xubnaha golaha deegaanka ee degmada Salaxley oo runtii ku dhiiraday inay fuliyaan qorshihii sanadkan 2022 ku jiray oo baabuurkan weyne in daba taagan iyo baabuur cagaf rugley oo ay wadada aad ugu baahnayd maanta u keenay golaha deegaanka degmada Salaxley waan uga mahadnaqaynaa sida fiican ee gudida wadada cad isu garab taageen haddii ay maayarkii hore ahaan lahayd iyo Axmed Buraale iyo maayarka xigeenkiisaba waan uga mahadnaqaynaa. maanta ay taariikhdu tahay 16kii bishii 9aad 2021 waxaanu halkan u taaganahay inaanu ku wareejino wadada cad qalab ka kooban roller iyo iskarogo qalabkaas oo kamid ah maalgelinta uu ku sameeyay banka dhexe Jamhuuriyadda Somaliland degmada Salaxley bankna waxa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay. gudoomiyaha gudida dhismaha wadada cad ee isku xidha Hargeysa Salaxley iyo Naguxa Faysal Muuse Shide ayaa gaadiidkaasi gudoomay waxaana uu mahad celiyay mas'uuliyiinta degmada Salaxley. waxaan u mahadnaqayaa gudidan maamulka dawladda hoose ee Salaxley iyo barasaabka gobolka iyo arrimaha gudaha iyo banka dhexe intuba hawshaas maanta aanu taaganahay waxay nagala qayb qaateen hawl fududeynteeda marka gaariga tankarka ah ee dabadeeda taagan iyo rugley soo socota oo iyaduna barooya ayaa oo iman doonta ayaanu labadaas aanu kala wareegnay insha Allah bismillaahi kariim. wadadana waxyaalaha fududeeya waxa ka ah in qalab loo helo. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi isagoo u mahad celiyay maamulka degmada Salaxley. runtii waxa farxad weyn oo ah in halkan maanta gaadiid lagu wareejinayo degmada lagaga shaqeyn doono wadada cad oo aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka degmada oo iyaguna dadaal muujiyay iyo mas'uuliyiinta